dad badan ayaa bilowgii u arkayay wiil yar oo shaqo uusan maskaxdiisu awood u lahayn lagu soo gamay, balse waxaa wax waliba isbedeleen markii uu la yimid shaqo ku dhisan nidaam dawli ah, taas oo xitaa sare u qaaday qurxinta shaqada mas'uuliyiinta ka sarreyda. taariikh 19 bishii Diseembar 2022 ayuu ku soo baxay liiska 3 qof oo ku jiro kuwaas oo loo magacaabay xilka uu hayo xiro la mid ah. qofka aan ka hadlayo waa xogayaha dowladda hoose ee degmada Cadaado, Injineer Cabdiraxmaan Axmed Xirsi, oo maanta 2 sano laga joogo markii loo magacaabay xilka xogayaha degmada Cadaado. sheekadan ayaan ku eegi doonaa nin dhalinyaro ah oo lafdhabar u noqday isbeddel xawaare sare ku kacay, tala wadaag, shaqo system ku socota, iyo wadajirka hanaan maamul oo madaxdiisa ayuu budligu noqday. dharaartii uu xilka la wareegay waa 5 maalin kadib markii loo magacaabay xilka ayuu la wareegay xafiis magac mooye hawl badani aysan ka socon. waxa uu durba yagleelay xafiis xogaye oo leh haybad maamul iyo shaqo dawli ah. xafiisyada agaasimayaasha hoostaga iyo kan ugu sarreeya ee guddoomiyihiisa ayuu ka hirgeliyey system si wadajira loogu adeego bulshada oo isku xiran, waana tan hawsha fududaysay. injineerku waxa uu dabdhaxaad u noqday tirakoobkii ugu horreeyey wejigiisa koobaad, kaas oo laga sameeyo Cadaado laguna ogaaday tirada guryaha magaalada iyo dadka ku nool. waxa ayna ahayd shaqo adag oo qaadatay ku dhowaad bil, taas oo looga gol lahaa in dowladda hoose ay ku ogaato tirada dadka ay maamusho. laba sano oo injineer Cabdiraxmaan xafiiska jooga waxa uu ahayd dharaaro, dheelalow iyo dharaandheerin shaqo. injineerku waxa uu hayaankiisa waxbarashada ka bilaabay magaalada Cadaado, halkaas uu dugsigiisa sare ku dhameeyay sanadkii 2016. muqdisho ayuu u sii gudbay, waxa uuna halkaasi ka sii waday waxbarashadiisa heerka jaamacadda. 2 shahaado ayuuna ka diyaariyey culumta injineerinka ee heerka koobaad ee jaamacadda.